حدقتي أفريكا حلقي قرنقاي هي الحمري حرير قلبي حرم باتاي idinka mahad celinayaa dhammaantiin inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan sharafta badan I never knew that in my school I had the most beautiful girl in Africa. I never knew. Even the gentleman who is doing the camera is also from Mula School product, so we can clap for him also. aynu xayaarne cawiska calanka waxawadeene aynu xayaarne cawiska calanka aynu xayaarne aynu xuseene dhulka ka qadne calankeena waxawadeena aynu xayaarne aynu xuseene عركة وقدنا علنكنا وحودنا عمل سبانو حبسي بقية ويبدل لكو دراع عذاب لو كوري عمل سبانو حبسي بقية ويبدل لكو دراع عذاب لو كوري دولة عديلو حدود والحباء لقو علبها عزل لقو حلا دولة عديلو حدود والحباء لقو علبها عزل لقو حلا دولة عديلو حدود والحباء وي لقو البحا حزن لقو حلا دولة عديلو حدود والحباء لقو البحا حزن لقو حلا سلطان صافي on the beat. إلهي ما رتعين بقال عباد الصبر هاي السيو دم بقالي دم بقوالد كان الله نافو سودا واغا صومالي ونندر يدارود يهوية باشا شرير وينه ساعتي مش حادي على الله تعالى الله يسكالي الله
أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي حدقتي أفريكا حلكي قرنقاي عيال حمري حرير قلبي حرم باتاي You are a phenomenal young woman. Wait, let me rephrase that. You're a phenomenal Somali woman. I want to leave you with one of my favorite quotes by one of my favorite phenomenal women, by Maya Angelou, which says, success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. So everybody in this room will absolutely support you in the journey that you're going to take for yourself. Love you lots, I just want to say that I'm so proud of you, Ada. She has been a sister from a different mother. We have experienced this journey together, and I am so proud of you. I wish you all the best during your reign, and I will hold your hand every step that you take. Thank you. عمل وحاول ولا شيء معان لأنه وحاول يجريه ولا شيء ما أنت إلا أن جاب كرتاجنا هذا أو فرحتنا دكان كي مكافر يكون وحق خصا عمل وحاول يدك مرجعنا for free هذا وحبي قالني جاب كي هذا مربع ما يحوك كذا يمر على ويعاوني سلامت كبعدي أرتو حن تحليل آدي عن أول فريا قبلنا عذر أنا ما قرني نفرنا هنتي لكن all along from the beginning وحن كأيجا يوتيوب ما نقرني وحن شاب كأيجا إسكاجه الدبسوماني أو كيف قال ليسو ميس يونيفرسيتي وان إيه مرة كاستمر كي نركز سو بدلنا يبقى حنوقع special interest because how I جبر ولا شيء ده جبر إيه جبر أنا بري روح جبر أنا دوا هاي جبر سومالية أيام أوفر حي وحنا اللي هي جبرها سومالية جدالها أون قلنا هرب الصعدة ما عرفت كيف قال وأنا أوفر حسن هاي مالين ويتنا وأنا أركب يونيفاس جبر كلا كنت الصومالية مركز جبرها يرير وحلية هي هرب الصعدة. Miss Somali University was number 2, so she was the first runner-up in 2018. 2 years later, we have a queen, and that means we'll keep winning. We want to encourage أضامل وعن كسوغن كساري دا يا غايغا أضالي كاسدكو سابلي دادكو وين تخير آدي قالي كاسدكو وانت خير جعلك أصعب ققل معانو أصعب ققل نفتي ذا كساستي جعلك أصعب ققل فرحت بي لو تهي وشرف وكرامه ووحي الصومالي اللي يقالي ووحي المدى الصوماليين هداية دقم بأولاد قروح لأفريكا يأدون قردن عربت لبتي إذا ما كان قرحانا قدها يدوا كقرحي قدها الصوماليين ما كان قرحان ما هني
aan ka qaadnay carabtana waa ka qaadaynaa kuwa kaloo la yidhaahda jamalka indhaha madowna waa ka qaadaynaa si baan uga qaadaynaa haddii ilaahay idmo marka aad iyo aad baan mar labaad gabdhaha iyaga soomaaliyeed ugu hambaryeynaynaa. It's a really great honor sida sharafta lagu soo dhaweysay inaan maanta meeshaan idinkala soo qayb galo. waa runtii xaflad aad iyo aad u qurux badan anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca safaaradda especially magaca safiirkayga maxamuud axmed nuur tarsan rag kaloo safaaradda ka tirsan waa soo socdaan banaankai taagan yihiin runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno haddaan nahay safaaradda soomaaliyeed ee Nairobi. walaashii guul midaan ka ballaaran ayaan ku horjeedayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo adiga ka hadlaya magac soo hooyey warkaada been waa soo helayaan laakiin waxaan aaminsanahay kaalin muhiima inaad qaatay boos quruxda gabdhaha Soomaaliyeed inaad banaanka ka wax wanaagsan waayo marka guul baan ku horjeedayaa mar badan. Celebrating Adha tonight reminds me of my younger self. Being an outlier, I was the first ever Muslim Somali lady in my university to win a school election as the student treasurer. Thank you for being my first ever model in our many campaigns. Thank you for trusting and supporting our journey. You are an integral part during the conception of Q Beauty. You witnessed our blood, our sweat, our tears during this long, treacherous, yet beautiful journey. I wouldn't have had it any other way. Tonight, we celebrate for breaking barriers, for being a role model to young girls from our community who need to see that it is possible. You are the epitome of beauty and a grace, and I'm so fortunate to call you my niece, my friend, my supporter. We love you and congratulations, the sky is the limit. Wow, martido dhammaan muslimiinta kulligiina waa idin salaamay idinku horeys aad ugu mahadcelinayaan maadaama ay maanteen meeshaan boos weyn ay iga fadhisiin maadaama Soomaali maanta xirfad saan u qurxoon as a crown oo ku yimaada muslim aad ugu mahadcelinaya. horta intii aqoonin magacayga waa Cadar waxaan ku magacleeyahay Bidixane intaan aqoonin bulsho wanaagsan horta mid ugu horeysa waxaan ku mahadcelinayaa Ilaahay oo wax walba noo suurageliyey inaan tartankan ka qayb galo ama caafimaad qabo caafimaadna wax soo laabto maanta ninka caafimaadayda ku rabiyo alxamdulilah Ilaahay mahadle. midda labaad waxaan ku mahadcelinayaa familkayga mar walba i garab taagan hooyaday macaan aanteeda maanta meesha taaganay maanta taagnaan lahayn aadan ku jeclay hooy macaan waxaan kaloo mahadcelinayaa walaalahay ka bilaabo falaashayda baan baradeena ilaa imaankeena caadi boos weyn ay taagan yihiin walaalo keliyiin ma aha saaxiibona way yihiin shumajaani wax badan ay soo caawiyeen markay noqoto la talin markay noqoto garab istaaga markay noqoto dhiirigelin waa inoo jeclahay kulligiina mideeda labaad maxaa laba maanta inaan mahadcelin gaar ah aan siiyo qof dhiirigelinteeda i baray sida markii nolosheeda ugu adkaato sida loo dhaafo haddii wax haddii nolosha ugu adkaato sida loo hor istaago dhiirigelin boos weyn aan ka helay haddii noqoto qof iga kalsoonaaday badankiina haddaadan aqoonin barasho wanaagsan aabahey dhaqane Thank you so much. I just have to remind the line out. Thank you, Abba. Abba kini maahan
boos aabbo ku buuxin karo aabbo waa qof maanta wixii ku dhibaa adiga kaa ilaalinaya aabbo waa maanta wax dhiirigelintaada mar walba ku taagan maanta aabbo dhaqan wuxuu ii buuxiyey hadday noqotay inuu ku kalsoo noqdo because way adag tahay gabadh in weel wadan loo fiirsado oo wadankeeda ka baxsan oon waalidka joogin qof ay garanaysan joogin in kalsoonidaas buuxda la siiyo in meel ka tanaado ay 55 wadan ay hor istaagto ay kaamana ay soo qaado aabbo dhaqane aad ugu mahadcelinaya aabbo thank you so much thank you صدق محمد بعد عينايا سيلفاس أفريقيا وما بلاتفورم كان سيسا إن أيوة سووا يستاهلوا أو يفيد بلاتفورم ممكن كي يقولوا لنا هم تلو حال كان عقب حقيقة إن نيجيريا ما عن كي يقولوا إلا عن سورة عين Madam Solu, the owners of Miss University Africa. Miss University Africa International Opponent. Waa organization oo dhiirigeliya gabdhaha inay asturnaan tartan ku galaan waa tartanka keliya ee Afrika ka dhaco ee aanan dhar qaawan laga xirin haddii aad noqoto inaad muslim tahay haddii aad noqoto inaad aad ka imaatay wadamo kale haddii aad noqoto inaad gaal tahay mar walba wuxuu promote gareenaya in aad asturnaataan oo asturnaantiina aad ka shumalba ku beertaan tartanka waxaa laga yaabaa inuu dhaco 2019 dadkii badanaa ugu yeelin waxaa waaye tartankan 2019 laga rabay weligay loo qaban karin mar ugu horeysa aan galo aheyd 2019 sababta uu dhici waayay wuxuu ahaa covid soo galay wadamadii waa la xiray ilaahay wuxuu galay in decemberkan la qabto marka ugu horeysa aan ka qayb galay aheyd markaan kasoo baxo organizationka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo asxaabteyda oo joogto maanta meesha asxaabta sameeya meeshaan saan u ruuxiyeen walaalahay aad iyo aad idin jecla garab istaagin mar walba ayaad garab taagantihiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa habaryaalkay meelahan fadhiyaan kulligiina anaa idin kala reebin aad iyo aad idin jeclahay inta waalidii ah oo maanta qolkaan fadhiso aad iyo aad idin jeclahay kulli maalinkiina meel weyn ayay wada taagay aad iyo aad idin ugu mahadcelinayaan hal waxaa idinkaga tegayaa dhalinyaro ahaaw hooyo ahaaw aabbo ahaaw wax walba wax haddaad jeceshahay inaad samaysid mar walba isku day inaad samaysid because waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa aad samaysid inuu ku suurtageli waayo marka labaad aad samaysid inuu ku suurtageli waayo taas macnaheeda maaha waxaan inuu ku suurtagelaynin mar walba waxaad jeceshahay diinta aad geshid waa samayn kartaa weligaa qof wuxuu ku dhahaa dhegeysan meeqa maanta dadkan bilyoneerka kulligooda marka ugu horeysa wax sameeyeen iyaga bilyoneer noqdeen waa may meeqa waxay kusoo dhaceen laakiin halkaas keliya aad adiga aad ku kormooste ama aheyd gaarto keliya lagu arkaayo marka wax walba aad rabtid inaad samaysid waalid ahaaw hooyo ahaaw dhalinyaro ahaaw waxaa idin sheegaya waxaad diintaada aad jeceshay inaad samaysid mar walba waalidiintaada ku ducaysid